bismillah magacaygu waa Cabdiraxmaan Aadam Cabdiraxmaan Qorshe waxaan maanta halkan ku qabanayaa maasal la magac baxday meeqaam jacayl baale maasadaas insha Allah waxay jawaab u noqon doontaa maasadii walaashay hore u duubtay abwaan ismahan Arraweelo ee laga magac baxday murmursi lacag baale marka hore muraad khayr mahadoo dhan ee baale marka xiga salaan miis marinkii sunnaha raac muslimnimada dawgeeda adigoo mudnaanta leh hadaad waajibkii moostay mar hadaad mamnuucayso mar inaad salaamayso nimaan midigta ku buuxin inaad qaadi mawlaa og maragana dadka sheegi miimleyda suugaanta sida mawjad soconaysa ama roob mahiigaana sida may aroor horay midhihiyo araartaydan tixdan aan maleegayo maansadan bilaabayo Arraweelo maqashiye marjacanayada keen gabadh yahay markaad sheegtay hadalkaagan muunaysan murtidiyo garfayntaada meherka shuruudaysan ina tahay marway qaali ragga kaan mahwiga keenin maal adigu goynaya dahabkiyo mariinkaaga marwaka u noqotay hayeeshee malayntaada fikirkiyo mutuhiskaaga adigoo muquunaya arrinkaana maqashiisi maragana dadka sheeg maansada ujeedkeeda anigoon ka maagaynin mid yar aan ku soo koobo idinkuna dhagaha maala inay yahay macnayntaada masalooyinkaaga oo dhan ma ogaantu waa ciile mid yar baan ku farayay dadku maqal yeelkeedi muhibbadu adduun maaha isma keeki guur maaha miidaama dooq maaha mid siraa la qariyay muhmal hadalku soo dhaafi malaayiinta aad sheegtay midheewaad u qalantaay bal waxaad ku mudanayso waxaad muunad dheeraatay magacii haween oo dhan ha maqlaan dadku iyo sheego maragana ana ku ah magaciyo dadnimadaada maankiyo garaadkaaga anigoon masuugaynin xuguurku miisaanka meel sare ka yahay diinta ma waxaad ku maamuustay lacag iyo waxaan muuqan micnahana adaa sheeg mar labaad su'aashayda mucjisadan la yaabkeeda mid waa midkaan sheegay mid kalena ku weydiiyay maragana dadka ii ah inay gabadhi maansooto miidaan gayaan joogo madal loo dhan yahay keento qiimaha mariinkeeda ka mid maaha dhaqankii madhab ugu weeyaan adduunyada macaankeeda manfac iyo wax suulay ku misaashay sharaftii mahadhadan maxaa keenay micnahana adaa sheeg ereygan ka murugooday hadalladan ismaan dhaafsan eed nagu majiirayso tiri waan matelayay ka mug weyn habluhu taas mar kalena ku weydiiyay hadal mudan inaan sheego murtidiyo ujeedkayga hadafkiyo muraadkayga majaraha ujeedkayga anigoon mildhaabaynin mucdo hoose aan taabto maragana dadka sheeg haddii aan ku maamuuso maal iyo adduun keeno marka aynu reerowno muddo aynu wada joogno haddii la iga ka maago milyan geela lay sheegto marka ay halka gaadho ila waad mabsuudaay soo intaad muraaqooto muran iyo khilaaf keento sanka iga marmarin mays bal inaan ku maqashiyo meherkiyo fariinkaaga maragana dadka sheeg ninka uu macbuudsiiyay miyariyo min way fiican hadduu maamul wacan keeno midba gaar u maareeyo caashaqa muqoorsiyo muhibbada naciimkeeda iyaga mataanoob ismaciinsan dhinacooda isaguna milguu yeelan muuq iyo jamaal fiican marba guri ka soo toos maxalkana nin jooga og in gabdhaha la meeleeyo gacalkana la maamuuso madal khayr la weeyaan goob lagu midoobayo lama dhiga martabadaas mitidkiyo istoorkaagan waxaanaad min guurayso noo kala micnee maandhig maragana dadka sheeg marka waan ku saxayay isma qiiqday gabadhay murmursiga aad sheegtay micno weyn ma keenay moodka iyo nool oo dhan midkaad libinta moodayso mar quraa la waayay ha u noqon maxbuus dollar maragana dadka sheeg sidan anigu moodayo ama ila muku weynaatay waxaan hadal ku meegaaray inay yahay micnaha qoyska kuma yaal ismaagay mashriq iyo dhul kala aaday qalbigaan maqnaanayn muhashada dareenkoodu wax mideeyo weeyaan mar hadduu midaynayo cadhadiina maydhayo meeqaam jacayl baale gaaf iyo mashraxad baale awlaad la mahadshaale qadarkaan la moosayni hadduu mawlaheen keeno hantiduna madoobaato si kastay u murugoto masaariiftu uga raagto marwo reerka dhaqataale maragana dadka sheeg